madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gaaray dalka Cumaan halkaas oo uu dhawaan ku geeriyooday boqorkii dalkaasi. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka qayb gali doonaan aas loo sameynayo boqorkii dalkaasi. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u ambabaxay dalka Cumaan si uu uga qayb galo tacsida qaran ee u taala shacabka iyo saldanada aynu walaalaha nahay ee Cumaan. waa safarkii labaad ee madaxweyne Farmaajo oo bil gudaheeda uga ambabaxayo dalka dibadiisa, waxaana garoonka diyaaradaha Muqdisho kasii sagootiyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Cumaan waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa suldaanka cusub ee dalka Cumaan, kaas oo bedelaya suldaankii geeriyooday ee Suldaan Qaamuus ibnu Saciid ibnu Tamuur iyo madax kala duwan oo halkaasi u tagaysa tacsida qaran ee u taala shacabka iyo saldanada Cumaan.